كل الديجان كوكله مركل لقى هذا إن الصمية بيحرنه سيان عرض وجورين وأنا ودعين عرجور تاسو كله waxay ka hortagaysaa deegaanka xaalufkii bay ka hortagaysaa way biyo markay soconayaan waxay qaadayaan daaqii iyo siirkii way qaadayaan marka waxay ku shubayaan meel biyo leh oo godan meesha godanna waa meel sida waa balli oo kale wax kama soo baxayaan marka waxaan oran lahaa in dadka deegaanada siiba deegaankan ay maanta joogno kale maxamed gaas ay sameeyaan dad loogu talagalay deegaanka ilaaladiisa oo kale oo ilaaliya deegaanka san dhirta loo jarin in la sameeyo biyo xidheeno xagga wadooyinkan biyuhu raacayaan ee badan in la yareeyo baabuurtan badan ee guri walba biyaha u qaadaysa ama raashinka u qaadaysa oo biyo wada kasta waxay ku soo shubaysaa wadada kalena waxay ku shubaysaa meel fog bay geeysaa biyo deegaankii biyo ku beyrmayaan marka halka waxa ka imanaysa arguur saameyn badan bay yeelanaysaa marka imika sida waxaad u jeedaan imika balligan oo kale dad baa yimi oo waqtiyada kamida kala xidhay dadkana waa dadka deegaanka dadku waa dad reer miyi waxay u baahan yihiin inay balligan uu shaqeeyo oo biyo badan u qabto waayo waqtiga biyo jiraan hadii balligan aan laga faa'iideysan oo markiiba barkadihii iyo dhulkii biyaha loo sameystay yaryaraan la furto waxa dhacaysa aan roobka kale aan gaarin oo jiilaalkiiba aan dhaweyn inay ka go'aan taasina ay sababto mar walba inagoo marqana biyo la'aan laga cabanayo iyo waxyaabo la mid ah marka balligan oo kale way laga faa'iideystaa la habeeyaa sida amal dhaam oo kale si biyo badan soo qabto oo dadkan barkadaha kale ay badbaadaan sarfeef ugu noqdaan xilliga adag sida oo kale markuu dadku dawlad bay leenahay waxaan u baahanahay biyo nadiif dadku u baahan yahay marka balligan oo kale laga tago balligan kale waxa looga faa'iideysan karaa sida beeraha kale iyo xoolaha waraabkooda laakiin ummadda waxay u baahan tahay biyo nadiif ah sida inay riig helaan ceelal dhaadheer sida inay u shaqeeyaan rugaha caafimaadka oo kale marka waxyaabo badan oo baahidii asaasiga ahayd oo la tabayo ayaa jira marka waxaan rajaynayaa cid kasta oo muuqaalkayga uu gaari doono ama dawlad ha noqoto ama shacab ha noqoto inay insha Allah taala dadaal iyo gacan ka geystaan